madaxa banaana ee sida maalinlaha uga soo bixi jiray magaalada Hargeysa Barkhad Latiif Maxamed oo ah wariye muddo 15 sano ku dhex jiray qoraalka jaraa'idada waxa uu arintaasi ku sababeeyay in ay meesha ka saareen baraha bulshada ay isticmaalaan iyo sidoo kale laamihii dawladda ee iibsan jiray jaraa'idka oo yareeyay iibkooda inta badan jaraa'idka waanu aan u badanahay iyo website-adan u badanahay waxay imika marxalad ugu adkeyd marsaa waayo bariga hore jaraa'idka marka la iibsado xukuumadda iyo siyaasiyiinta aad u bahalaysan jiray waa la yareeyay lacagtii muxuu ahaayay dalabkii xukuumaduhu qaadan jireen ama wasiiradu qaadan jireen waa la yareeyay taasina dakhligii jaraa'idka ayaa hoos u dhacay talabaad dhaqaalaha guud ee waddankuna hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha waddankana iibkii jaraa'idkuna uu yaraaday saxaad waxa iyaduna keenaysa muxuu ahaayay population-kii iyo dadkii muxuu ahaayay ku xunaan jiray warbaahintii ayaa imika wax badan barihi bulshada marka warkii aad bari maanta qoraysa bariha sideen lahayd oo reer dadkii wada haystaanba oo mobilkii wada haystaanba marka waxa noqotay digital taas waxay ka saartay meeshii jaraa'idkii ka saartay TV-ga oo imika xitaa la daawamay ay sababtay waxaa jira caqabado iyaguna sidoo kale laf dhuun gashay ku noqday helitaanka wararka ee qaybaha kala duwan ee warbaahinta in mas'uul kasta uu samaystay sawir qaaday isaga u gaara oo warkii ay warbaahintu u doonan jireen ku baahiya bayjajka ay gaarka u leeyihiin hay'adaha kala duwan ee dawladdu sida uu sheegayo wariye Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo oo kamid ah saxafiyiinta sida maalinlaha uga howlgala magaalada Hargeysa labada goob halkan oo maqaaxi inta badan dhiishka loo yaqaan oo duhurkii la isugu yimaado iyo Imperial waxay iskugu keenay goobihii wararka laga dooni jiray ayaa ah runtii imika caqabado ay kala kulmeen oo intuu ninkii mas'uulka ahaa ee goobta loo keenay uu kamarad soo iibsado mid kamid ah inama ay wuxuu yahay amba isku reerihiin oo kale oo keeno kadibna muuqaaladii halka kaga duubo warkii oo raafeeban social media la soo geliyo halka la yiraahdo kala baxa wararkii haddaba sidee ay xalka u arkaan arimahani lagaga gudbi karo saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha magaalada Hargeysa waxa arintaasi inoo qodobaynaya wariye Saciid Faarax Muuse Cagjar sida maanta warbaahintu ay tahay hadii ay ku socoto warbaahin ma siihan karayso waa in warbaahinta nidaam lagu soo gala aqoon lagu soo gala goobaha warbaahinta mulkiilayaasha iska leh ee runtii ka dhigtay bakhaariyigu ay leeyihiin oo dhaqaale kaliya ay ka raadiyaan waa inay fahmaan in goobtan ay furteen aanay ahayn bakhaar dhaqaale laga raadinayo ee ay tahay muraayad isku xidhaysa ummad meel ku wada nool oo iska dhaxarkayaan dadkaasi marka waa in la tayeeyo aqoontii warbaahinta waa in mulkiilayaasha la baraa miinadan warbaahinta waxay u furteen inay tahay inay ummadda isku xidhaan balse aanay ahayn iyagu dhaqaale raadiska iyo dhowrnimada ay ka doonayaan oo ka duwan yahay ta kale ee ugu dambaysa waa inuu jiraa urur si nidaama oo sharciya oo mihnad ahaan saxaafadda takhliiqiyan ku ah oo saxaafadii haga oo nidaamiya meeshii waa inuu jiraa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja ayaa TV-ga 5TV waxa uu wax ka weydiiyay waxa uga meeliyalka urur ahaan in inamada warbaahintu ay xaqooda ka helaan mulkiilayaasha goobaha ay u shaqeynayaan ayaa waxa uu kaga jawaabay ka shaqeynaya in xuquuqaadka aasaasiga qofka suxufiga ay runtii meel saarto maadaama doonaya hay'adiisa warbaahineed in ay noqoto mid wax soo saar fiican leh waxa markii hore koowa in uu ku talagalo qorshaha ugu horeeya oo qofkan u shaqeynaya baahiyaadkiisa in uu meel saaro oo waana kula qorshe la'aanta ka mid tahay qofkan warbaahinta furanaya qorshe uu warbaahinta u furanayo aan inuu lacag ka sameeyo aan ahayn uma sameeysan markii hore lacagtii uu sameeysan lahaana waxay ku xiran tahay badashadeedii ama in wax badan soo saara qofkii suxufiga ah sidoo baahiyaadkiisa wax uga qabto badan kale urur ahaana runtii daraasaadka aanu sameeynay waa waxyaabaha kowga ah in maanta warbaahinta Soomaaliland ay halkii ugu liidatay ay marayso duruufta ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliland gaar ahaan kuwa Hargeysa ayaa waxay wariyaashu sheegeen xalka kaliya ee laga bixi karaa in uu yahay in mulkiilayaasha TV-yadu ay fahmaan kaalinta ay warbaahintu ugu jirto bulshada iyo dalkaba oo ay ka ilaaliyaan duruufta iyo dayaca wariyaasha u shaqeynaya isla markaasina ay dhowraan xaqooda aasaasiga ay ka mid yahay mishaarka qalabka iyo gaadiidka ay goobaha aadka u dhaadheer u adeegsanayaan ay ka soo sameynayaan warbixinada waa Boqor Axmed Cabdi 5TV Hargeysa